السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكي شاكر يوتيوب كان أداوني سيدنا وشاكر فضلا هداد كعصبتاهي نو سبسكرايب قرأي والله أنا لو ذاك waxaan rajaynayaa sidaan anigu u wanaagsanahay inaad inagana u wanaagsantihiin maasha allah. maanta mawduuceena iyo tawbigeena wuxuu ku aadan yahay waxaan inoo wadaa maanta 7 sifo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu jeclaanayo. ma jeceshahay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jeclaado? ma jeceshahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku soo dhaweeyo oo ku gargaaro? ma jeceshahay ilaahay inuu ku jeclaado? ma jeceshahay ilaahay inuu raalli kaa noqdo? ma jeceshahay ilaahay inuu macaaga u noqdo, kuu kaalmeeyo, kuu nasareeyo, waxa walba ood u baahan tahay ku siiyo, ku hanuuniyo, ku jeclaado, ku soo dhaweeyo, ku toosiyo? ma jeceshahay? haddaad jeceshahay 7 astaamo ayaan kuu sheegayaa oo ilaahay kugu jeclaanay, raalli kaaga noqonayo, aada ugu dhawaanaysid. waa 7 sifo inaad ku sugnaatid. sifada koobaad waa al-ixsaan, waa inaad fiicnaatid. hadalkaada inuu fiicnaado, ficilkaada inuu fiicnaado, cibaadadaada inay fiicnaato. an tacbud allaha kaannaka taraa, inaad ilaahay u caabudid sidii adi arkayo oo ujeeda oo kale. akhlaaqdaada inay fiicnaato, sidaasuu ilaahay kugu jeclaanayaa. ilaahay wuxuu yidhi wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin. wanaagsanaada buu ilaahay yidhi, darajada al-ixsaan gaadha. ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniin, kuwa wanaagsan ayuu ilaahay jecel yahay. ilaahay waxa uu yidhi liladiina axsanuu alxusna waziyaada, kuwii wanaagsanaaday waxaa u sugnaatay xusna, janna u sugnaatay, iyo waziyaada, iyo janno iyo ziyaada u sugnaatay. ziyaadadaasi waa al nandur ilaa wajhi illaah, ilaahaygaad caabudi jirtood wejigiisa aragto. maxaa ka weyn, maxaa ka fiican? allahu akbar. sayidkeennii nabi ciise calayhi salaatu wassalaam waxa uu yidhi laysa alixsaanu an tuxsina ilaa man axsana ilayh. ixsaanku maaha wanaagu qofka inaad wanaajisid. taa waxaa la yidhaahdaa wanaag ood u abaalgudday wanaag. ixsaanku muxuu yahay? waxa uu yidhi an tuxsina ilaa man axsana ilayk, qofkii ku xumeeyey ooda wanaajisa weeyaan. maxay ku gaadheen? inuu ilaahay raalli ka noqdo, inuu ilaahay u jeclaado, inay jannada galaan, inay ilaahay arkaan. maxay ku jeclaadeen kuwaasi? ilaahay wuxuu yidhi innahum kaanuu qabla dalika almuxsiniin. waxay ahaayeen adduunka markay joogeen qaar wanaagsan bay ahayd, akhlaaqdoodii iyo qowlkoodii iyo wanaagsanaa. idan sifada ugu horeeya, asnaamta ugu hore ilaahay uu kugu jeclaanayo waa al-ixsaan. calaamada labaad, astaanta labaad oo ilaahay kugu jeclaanayo, raalli kaaga noqonayo, waxaa wey inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobadkeentid ood ilaahay u noqotid. ilaahay wuxuu yidhi ina allaha yuxibu tawaabiin. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa mar walba toobada keena ee ilaahay u noqda. ilaahay wuxuu doonayaa inuu toobada kaa aqbalo, dembiga inuu kaa maydho. ilaahay waa kugu farxayaa markaad ilaahay u soo laabatid. ilaahay waa kugu farxayaa. maxaa ka fiican marka walaal inaad ilaahay usoo laabatid ood ilaahay u toobad keentid ood ilaahay usoo noqotid.
taqwada waa astaanta labaad ilaahay kugu jeclaanaya. ta saddexaad ilaahay waxa uu jecel yahay uu kugu jeclaanaya oo raalli kaaga noqonaya waa atatahur inaad istaahir yeeshid qalbigaada inaad nadiif ka dhigtid jirkaada inaad nadiif ka dhigtid dunuubta inaad iska meydid iyo dahaarigii xisiga iyo jinsiga ahayd inaad soo qaadato wathiyaabaka fatahhir inaad ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isdaahir yeelo oo isnadiifiyo ayuu ilaahay jecel yahay. ina allaha yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutatahiriin kuwa ku dadaalay mutatahirka nadiifta iyo jirkooda nadiifiyey nadaafada ku dadaalay taana ilaahay waa jecel yahay. ilaahay baad ugu dhawaanaysa raalli buu kaaga noqonaya. sifada afraad waa afar uu ilaahay kugu jeclaanaya kugu soo dhaweynayo darajo sare kugu siinayo waa alla ka cabsi. ilaahay ood ka cabsatid fa ina allaha yuxibu almuttaqiin ayuu ilaahay leeyahay. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa ka cabsada cadaabtiisa ka cabsada cuqubadiisa ka cabsada iska ilaaliya macaasida daacadda u orda. ilaahay kuwaas waa jecel yahay. shirki iyo xumaan iyo dunuubtaba ka fogaada. astaanta shanaad oo ilaahay kugu jeclaanaya sifadaasi waa asabr inaad sabr yeelatid. ilaahay wuxuu leeyahay wallahu yuxibu asaabiriin kuwa sabra ilaahay waa jecel yahay. daacaadkiisa maxaarimta ilaahay kaa xarimay ka sabra ka joogsada iyo masaa'ibta dhacaya qoran ku sabra kuwaas ilaahay waa jecel yahay. ilaahay maxaa ka fiican jannada markuu ilaahay subxaanahu watacaala ay galaan mu'miniintu ay jannada galaan ay tiraahdo salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma aluqba daar. malaa'igtana soo gelayso min kulli albaab waxay ku leeyihiin salaamu calaykum salaan nabadgelyo korkiina ha ahaato jannada maxaad ku gasheen wa bimaa sabartum sabirkiini awgida ay jannada ku gasheen. daacadii ilaahay baad ku sabirteen maxaarimtii baad ka sabirteen qadarkii ilaahay baad ku sabirteen. ta lixaad uu ilaahay kugu jeclaanayo waa tawakul cala allah. ilaahay oo tala saaratid asbaabteed aada la imaatid ilaahay subxaanahu watacaala wuu jecel yahay. ina allaha ilaahay wuxuu leeyahay yuxibu almutawakkiliin ilaahay kuwa tala saarta waa jecel yahay. in ilaahay tala saarto ma aha laakiin asbaabta inaad ka tegtid ilaahay ayaan tala saaranayaa inaad tiraahda keliya ma aha laakiin waa inaad asbaabta la imaato. caaqilahaa watawakal waa wuxuu ilaahay kugu jeclaanayo. ilaahay miyuuna kugu filnay? ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alaysa allahu bikaafin cabdah. qofkii ilaahay subxaanahu watacaala tala saarta miyuuna ku filayn? addoonka ilaahaysi waa ku filan yahay. alaysa allahu bikaafin cabdah. midda toddobaad waa inaad la timaadid cadaalad. waa inaad naftaada cadaalad aad u yeeshid. waa inaad mu'miniinta cadaalad u yeeshid. waa inaad caruurtaada cadaalad u yeeshid. waa inaad xaasaskaada cadaalad u yeeshid. waa inaad naftaada cadaalad u yeeshid. ilaahay wuxuu leeyahay ina allaha yuxibu almuqsidiin. ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda la yimaado oo cadaaladda la yimaado ayuu ilaahay subxaanahu watacaala u jecel yahay. marka toddobadaas sifadood walaale haddaad sidii wanaagsan oogu dhaqanto ilaahay subxaanahu watacaala waa kusoo jeclaanayaa waana kusoo dhaweynayaa. walaalayaal aan ku dadaalo sifa toddobadaas sifa aad oogu dhaqmayso ilaahay siduu raalli kaaga noqdo maciisana aada u noqoto kuguna gargaaro kuguna sareeyo. walaal gudbi walaalkaaga kala gaadhsii fariintan ha ka faa'iidaysto si aad adigaba oga faa'iidaysanayso walaalkaaga kale ha oga faa'iidaysto. sii sheergare walaala khayrka waa la sheergareeyaa oo khayrka waa la gaadhsiiyaa dadkee ha bakhayl ha noqonin gaadhsii walaale walaalkaaga
nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy balliq canii walow kaana aaya, hal aayadna ha noqotee ummadayda qof kasta hal aayadna ha noqotee iga gaadhsii ayuu ku leeyahay. waa dardaaran. sii sheergaree walaala, marka walaalkaa gaadhsii ha ka faa'iidaysto sifa adiga aad uga faa'iidaysanayso oo kale asagana ha uga faa'iidaysto. oo walaalkii shaakir oo inale insha allahu biidni illah waa inuu xalaqadeena dambe. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. fi amaan illah.